maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa bishii 7 Abriil 2020 xukun dil ah ku riday Faarax Cabdi Maxamed hooyadii ku dilay Tuulo Jalam ee gobolka Nugaal wuxuuna dilka geystay bishii 6 2020 maanta ay taariikhdu tahay bisha 10 2020 ayaa lagu fuliyay qisaasta xukunkaas waxaana qisaasta fuliyay walaalkii ka yar Caawin Cabdi Maxamed xiriiraya ku xigeenka guud ee dawladda Puntland Maxamed Xareed Faarax ayaa ka warbixiyay sidii qisaastu u dhacday taariikhdu markay ahayd 14 bishii 7 2020 maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal waxay xukun dil ah ku riday dil suge Faarax Cabdi Maxamed ina Xaawo Jaamac 42 sano jir ah kadib xukunkaas markuu dhaqan gal noqday yaa taariikhdu markay ahayd 1 bishii 9 2020 xafiiska xeelaanta guud wuxuu qoray qoraal ah ku wargelin xukun sugadil si waafaqsan qodobka 248 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed kaasoo dilay hooyadii oo la oran jiray Xaawo Jaamac kuna dilay Tuulada Jalam taariikhdu uu dilayna waxay ahayd 17 bishii 6 2020 markaa hooyadii oo marxuumadda dhimatay ah waxay dhex joogtay waqtigaas deegaanka ay ku nooleed oo ah Tuulo Jalam dilka wuxuu adeegsaday ninka isaga uu hooyadii ku dilay bahaladaha sabaradaha la yiraahdo waaweyn oo shubabka qoryaha ah lagu fujiyo waaweyn oo haaf ah iyo jawaan ku soo qaatay hooyadii buu yimid madaxa ayuu kala dhacay heer wuxuu gaarsiiyay maskaxda inay soo daadato hooyadii waxaa loola cararay isbitaal Buurtinla ah kadibna halkaas ayay ku geeriyootay hooyadii maxkamaddu markay ku heshay dil si camdi ah inuu wax u dilay la baaray caafimaadkiisa dhakhaatiirtu soo cadeeyeen inuu caafimaadkiisu taam yahay dhimirkana uu waxba ka qabin dadkii dhaxlayaasha ahaa oo asaga la dhashay gacan ku dhiiglaha maanta dilka lagu fuliyay oo ahaa kuwa la aabaa la hooyo ah ayaa waxay soo codsadeen sidoo Allah u jideeyay shariicada islaamkana waafaqsan inay qisaasaan kadib 7 asagana 8 buu ku ahaa walaalihii 7 ay ahayn asagana 8 buu ku ahaa asaga marka laga saaro 7 kale waxay soo qoreen inay qisaas Caawin Cabdi Maxamed oo isagu qisaasta marxuumka fuliyay ayaa sheegay in dhammaan qoyskooda ku qanacsan yihiin sida wax u dhaceen waxaan Caawin Cabdi Caagani waxaan halkan ka cadeynayaa maanta oo bishu ay tahay 17 bishii 10 2020 Faarax Cabdi Caagani walaalkay ahaa oo hooyadii Xaawo Jaamac Cabdulla Tuulo Jalam ku dilay magaalada Tuulo Jalam 16 bishii 6 2020 in maanta halkan aan ku qisaasanay qisaasaasna aan u fuliyay anaga waxa soo wakiishay walaalahay intii dhaxlayaasha ahayd oo hooyaday dhashay ayaa soo wakiilatay sidaasaan maanta qisaasti u fulin saxaafadana annaga ka codsanay anaa codsaday waxaan ka codsaday xeer ilaalinta iyo maxkamaddaba inay keenaan si aan ummadda Soomaaliyeed uga faa'iideeno walaalahaya iyo dadkii kale oo ehelada ahaa na ay u gaadho arrinta tani in macnaha ninka xaq laga oofiyay oo laga rogay hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa Telesom